السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته لهيك qaaliga meel kasta adduunka ka joogtiin waa idin salaam waxaan idin rajeynaa caafimaad kusoo dhawaada maanta iyo maxay ahayd muuqaal cusub ama video cusub insha Allah taala videoga wuxuu ku saabsan yahay ilmaha soo dhaca ama soo daata sa u taqaan qabso u yaqaanaba marka waxaan rabaa dhowr qodob oo arintaas ku saabsan inaan ka hadlo waxyaabaha sababa markasta inaan ka hadla rabaa marka waxaan maxay ahayd idin rajeynaa intii ilmo raadinayso oo ilaahay ilmo ka sugaysano ilaahay awlaad saalix ah siiso awlaad kaliya lagu duceysto awlaad saalix oo baariyo diinta yaqaano oo maxay ahayd maasha Allah inuu ilaahay na siiyo intii hadda haysatan ilaahay oodka u daayo na wada daayo insha Allah taala marka walaalahay maxaa sababa ilmaha soo dhacaya maxaa sababa horta ilmaha badanaa waxay soo dhacaan soo daataan isbuuci 12aad iyo wixii ka hooseeyo inta la gaarin wixii ka hooseeyo soo daataan macna 3 bil wixii ka hooseeyo marka qaar lama dareemo hooyada ma dareento marka qaarna waa la dareemayo xanuun oo wixii kugu maxay heeday leedahay zaid u daran marka qaar marka la dareemo waxa waaye adoo ogeen ilaa amarkiisba عادة وملاها حساب ديق عادة زائدة أصلا ديق بدنا بسم الله بشارة أصلا إلا وائل مصدات ما قد مركا واحد نورمال أهواية ورت عذرنا ما أهن إلى عذرنا يكوريو لكن محاسب مركا قارن خاطرته بحيدهان maxay heeday labada waxa ugu waaweyn oo sababi karta waxa waaye in ukunti meesha si rabtay in ugu dhagto inaysan ugu dhagin oo ukuntaas deesan ku dhagin meesha ku dhagayso meesha cunug ku abuurma ku weynaha deesan ku dhagin markaas ilmi wax soo daatay naqanayaan oo wixii wax ay naqayaan oo halaaba amal naqayaan hadii markaas ay ukunta ma ukun badan jiro marka way isqa qaybiyaan hadii ukunta isqaybinaysan hadii maxay heeday isqaybsin loogu talgal isku qaybays iyadana way halawda oo ilmi markaas ay waxay noqotaa marka taasa jirto waxa kale loo soo walaalahay qofka haweeneyda uurka raadinayso hadii 30 sano ay ka weyn tahay ayadana risk ay jaaniska amba riski ugu weyn yahay in ilmaha ay ka soo daataan oo hooyada markay weynto kale haduu ilmo ka soo daato hooyo adeed tusaale 34 jirto haduu ka soo daato iyo hooyo hadda la arooso 19 jir haduu ka soo daato markaas waxa risk weynahayo hooyada 34 jir aan normal ahaan ilmaha ka soo daataan waayo jirkii uu sii weynaahaya okay maxaa kale oo sababi kara waxa kale oo sababi kara walaalahay inuu qofka xanuunsan yahay cudurro qabo sida sokorta oo kale qabo waxyaabahaas oo kale qofka markuu qabo waxa waa idane riskigu badan in ilmaha ka soo daataan oo waxa waaye halistaas way jirtaa waxa kale oo jira qofka haduu cayilan yahay hadii hooyo zaid cayilan ay tahay iyada ilmaha way soo daadanayaan ilmaha way soo daataan hadii hooyada cayilan tahay cayil zaid leedahay way soo daataan ilmaha waa normal waxana sabab cayilkaas badan sababa inuu soo daadahay ilmihi oo jirkii wixii la rabo difaaci adduunkii wixii la rabo san lahayn waxa kale oo sabab walaalahay in hooyada ay ka qabto makaanka meesha minka iyo waxaas ay problem ay ka qabto amba uu gaaban yahay kale amba maxay ahaydee murqaha kale meeshaas ay jilcan yihiin oo kale amba oo maxay ahayd si loogu talagaleysan ahayn ayadoo soo daadahan problem dhinacaasna wuu jiraa way sababtaa 80% marka qaar ilmaha soo daadanayo waxa kale oo jira hooyada in aysan caadadeeda saxneen oo macnaha caadada ay ka jirinto oo kale hadii caadada ka jirinto oo kale iyadana way sababtaa caada wareerkaas oo kale iyadana way sababi kartaa waxa kale oo jira iyadana caada wareerkaas la socdo infection oo kale de hooyada infection qabto kale infectionkaas ayada caado wareer oo keenay caado wareerkaas maxaa si iimaanaysa in ilmihi soo daataan oo kale marka ayada taasna way dhacdaa markasto oo riskiga oo qofku markuu infection leeyahay oo kale way leeyihiin marka hadii markaas waxa kale oo sababi kartay dhaqaatiirta dhahaan in hooyada dhowr mar ay ilmo soo lahayd oo uur soo qaaday dhowr marna uur soo qaaday iyadana way sababi kartaa maxay ahayd in ilmaha ka soo daataan dhowr mar hada uurad macnaha hada 6 ama 7 cunug daadash waxa laga yaabaa cunug jeedada kala soo daataa laga yaabaa idana riskigaas uu jira asigana walaalahay waxa kale oo sababi kara ayadana oo ilmaha inay ka soo daataan sababi kara hadii qofka oo hooyada ay tahay hooyo jimicsato jimicsigeedu badan yahay oo gym aad oo kale wax sameeyso kale aad ayadana u sababaya inuu ilmahaas ay soo daataan cunuga markuu yar yahay waxa la rabaa cunug intuu ka adkaanayo cunug weyn ka noqonayo hadaa tahay qof gym aad jiro kale oo jimicsi sameey jira ina yareyso waxa kugu filan kaliya ina socod ilmo soo halaa ma soo daadiyaan socod hal saac waxa soo socolaheedo kale oo fiican oo kugu filno adiga oo si fiican u socotid markan oo soo socolaheed marka ma sha Allah way kugu aadaysaa halka saac oo jimicsigana ku noqonaysaa ilmihiina wax ma u dhimayso marka muhiim waaye iyadana qofka inuu gymka iska dhaafo
inkastoo Soomaalida aysan gym aadin dadka meeshan ku dhashay ma sheegin. waxaa kaloo jira stresska ayadana aad runtii uu halis ugu tahay hooyada uurka leh weliba uurka dhow markay tahay stresska ma fiicna baayo haddii markaas xaajiga problem oo kala jiro kale waxaa la rabaa inaad dantaada ka fikirtid haddii ninkan ay tahay iskala hadli karta iskala hadashid haddii xal kale uu ku banaan yahay xalka kale aad samaysid laakiin aadan cagta u saaran oo fahmoosa oo adiga inta afkaaga la amaan laga helay iska aamustid waay ma ku fiicnaa hayso daa markasta qeylisido inta ka dhacdo xanaaqdo iswaashid adi caafimaadkaaga ma fiicna caafimaadka haduu ku odo caafimaadka fiicnaana ilmihina eegan ilma adkaanay ma ahan wax soo daadanaya naqanaysa oo hooyada jirkeeda stress ayaaba idan jir oo degan oo wax ma ahan marka muhiim waa in qofka stresska inuu iska dhaafo waxaa kaloo muhiim walaalahay hooyada markay saas oo kale uur u yeelato inta ilmaha ka adkaanaya waxaa la rabaa inaysan xaajiga isku tagitaanka xataa yaraado waayo iyada naftirkeeda halis ay u tahay ilmahaas caloosh ku abuurmay waxaa kaloo iyada loo baahan yahay inay hooyada iska ilaaliso haddii tahay qof dabaasho oo kale dabaal way jirtaa hadda gabdho Soomaaliyeed dabaasho arko meeshan aan hadda Sweden joogo waxaa jirto meesha dabaasho weynta lagu soo dabaasho meel xiran waayo guri dhexdiisa waayo marka waxaa jirtay isbuuci hal maalin waxaa loo ogolaay inay naaga kaliya ay dabaashaan marka naaga Soomaaliyeed meesha tagi jireen ku soo dabaalan jireen dabaasho naftirkeeda jimicsi waayo mogtahay dabaasho naftirkeeda jimicsi oo jirka ah waaye marka waxaa loo baahan yahay hooyada naftirkeeda inay iska dhaafto ayadana maxay ahayd haddii dabaalo jirto kale iska dhaafto waayo biyahaas iyo waxyaabahaas ma u fiicno iyo adiga naftirkaaga ma ku fiicno cunuga markuu oo iisoo sheeg oo saas oo kale u yaryahay marka walaalahay waxyaabo badan la isaga baahan yahay in la sameeyo runtii waxaa kaloo la dhahaa waxyaabaha la cuno kale waxaa la malaayada qaar oo kale iyada looma ogolo hooyada inay cunto malaaya qaar waxaa jiro oo fiicneen oo kale كل أنا ملاك ما كلا أقانون لكن أذا لقارا ملاك إن أسكسو بارتد نوع عنيسد وحاكلو الرول عليه هيلب كوكلا سفي عن لسه بس لي على الرأي هيلب عيرين كجرو كلا أما الدورة الدجاج كوكلا دي عيرين كجرت أيضا موفي عن هاي ضور كلا وحاكلو أيضا لو أيضا صوف مالي وهذا الهيسا الله لها ملك يحلو بدأ أيضا موفي عن هاي ضور كلا ويدا أور كلا ولي أوركاس أو يرجعي ملابكي حل بدأ ما أوفيعنه إن إسكيل على سال ربع مركول عليه وحياة بدنا جرو إن شاء الله تعالى فيديو كنت أنا كأكيا إن أورك بدي مرة قد بدأ صوشي كذا إذا سو إلهي الماء هو أتكي أنت أورله ولا سالحة الله نوصي دمانتين أنت حاملان إلهي سبحانه وتعالى وحأخبر يا أفر إن هذا أبشر إنه خكال لك إن شاء الله تعالى وحنكع عصنا يا إن فيديو قلا جريسو أو شير جريسو أصحاب تاعي جارسيسو قام ولا كان أفرطو سبسكرايب كي أثرت ما سنتي ولا عليه قالي وحي فكرة إنه هو سنة يقصو قرطان جعلها هاي وحي فيديو أو أركت إن شاء الله تعالى السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.